Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV. Qodobada aanu idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shaacisay sababta ka dambaysa dib u dhaca ku yimid doorashada Galmudug. Beesha caalamka oo iyaguna war ka soo saaray xaaladda maamul goboleedka Galmudug. Ciidamada Kenya oo 250 qof ku dilay gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. Xisbiga wadajir ayaa isla dowladda Qatar ku eedeeyay inay gudaha Soomaaliya ka wadaan arrimo liddi ku ah ammaanka dalka. Liiska magacyada odayaasha soo xuli doona xildhibaanada Jubbaland oo la shaaciyay iyo xaaska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Michelle Obama oo taageero laxaad leh u soo jeedisay Ilhaan Cumar iyo xildhibaanada kale ee la jaalka ah. Intaasi daawadayaal waa qodobada warka aanu idiin hayno. Haatana ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa markii ugu horeysay shaaciyay sababta ka dambaysa dib u dhaca ku yimid doorashada Galmudug. Wasiirka ayaa dib u dhaca doorashada ku yimid ku sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay muddo bil ah ka shaqeynaysay isu keenida beelaha Galmudug iyo dhamaynta khilaafka ka dhex jiray madaxda maamulkaasi. Wasiirku waxa uu tilmaamay in haatan qabanqaabada doorashadu ay marayso meel wanaagsan isla markaana ay dhawaan qabsoomi doonto doorasho xalaal ah. Dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa ka warbixiyay safarka uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku joogo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaalo badan uu sameeyay ra'iisul wasaaruhu isla markaana uu isu keenay duubabka dhaqanka iyo culimada isagoo sidoo kalena maray deegaano badan oo hoos yimaada Galmudug. Doorashada Galmudug ayaa la filayay inay markaasi qabsoonto 4 bishan ku jirna ee July balse ma ay suurta gelin iyadoo ay weli caqabada ka taagan yihiin arrimaha doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta oo labadaba lagu wado inay ka dhacaan magaalada Dhuusamareeb. Xubno ka socda beesha caalamka oo shalay booqasho ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa war ka soo saaray xaaladda Galmudug gaar ahaan shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada. Ugu horeyn beesha caalamka ayaa bogaadisay dadaalada miradhalka ah ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka wada halkaasi. Sidoo kalena waxay sheegeen inay rajo wanaagsan ka qabaan inay dhawaan qabsoomaan shirarka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug. Qoraalkan ayay sidoo kalena ku sheegeen inay filayaan in doorashada deegaanka Galmudug ay markaasi u dhacdo hab xor ah. Taasi waxay horseedaysaa in la helo dowlad leh maamul midaysan oo ka shaqeeya rabitaanka shacabka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay beesha caalamka. Safiirada fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo wakiilada qaramada midoobay, midowga Afrika iyo IGAD ayaa ugu dambeyn ka mahad celiyay sidii diiradda ay loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb. Dhawaana waxaa la filayaa in doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka ee Galmudug lagu qabto halkaasi inkastoo ay weli jiraan caqabado ku xeeranay. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgallada AMISOM ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay dad shacab ah ku laayeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. Korneel Aadan Rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliya oo la hadlayay idaacad maxalli ah oo xarunteedu tahay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay bishan gudaheeda dileen 250 ruux. Waxa uu sheegay in dadka la laayay ay isugu jireen ganacsato iyo dad shacab ah kuwaasi oo Kenyaanku ay ku eedeynayeen inay ka soo horjeesteen maamulkooda iyo dhul ballaarsi ay Kenya doonayso inay halkaasi ka samayso. Korneelka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Kenya ay qaraxyo dhulka ay geliyeen ay ku qaraxiyeen gawaadhi dad shicib ay lahaayeen kuwaasi oo waxyeello soo gaadhay. Hadalka Korneelka ayaa imanaya iyadoo xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya uu shalay shaaca ka qaaday ciidamada Kenya ay dileen dad shacab ah oo la socday gaari kadibna ay gubeen meedadkoodii meel 10 kiiloomitir u jirta deegaanka Raaskamboodi. War qoraal ah oo ka soo baxay xisbiga wadajir ee uu gudoomiyaha ka yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lagu cambaariyay dowladda Qatar oo ka mid ah dowladaha sida weyn u taageerta xilligani dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xisbiga wadajir soo xiganaya qoraal lagu daabacay wargeyska New York Times oo nuxurkiisu ahaa wada hadal khadka telefoonka ku dhaxmaray safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan bin Xamsa iyo Khalifa Khayaad oo ah nin ganacsade ah oo isku dhow yihiin amiirka dowladda Qatar. Wada hadalkaasi oo ku saabsanaa qarax ka dhacay Boosaaso oo uu ninkaasi sheegay inay fuliyeen saaxiibo u jooga Soomaaliya
oo ay isku dhow yihiin amiirka Qatar oo uu ninkaasi sheegayo inay fuliyeen saaxiibo u jooga Soomaaliya. Xisbiga Wadajir ayaa ku eedeeyay dowladda Qatar inay qayb ka tahay dhibaatada xilligan haysata Soomaaliya oo ayna xiriir la leedahay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin argagixisada dagaalanta Soomaaliya. waa siday hadalka u dhigeen. Qoraalka ka soo baxay xisbiga ayaa lagu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay cadeyso mowqifkeeda ku aadan dowladda Qatar. Ugu dambeyntii xisbiga Wadajir ayaa ugu baaqay golaha shacabka Soomaaliya, maamul goboleedka Puntland, qaramada midoobay, midowga Afrika, ururka jaamacadda Carabta iyo urur goboleedka IGAD inay arrintaasi ku sameeyaan baaritaan madax bannaan. Xaaska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Michelle Obama ayaa taageero u muujisay Ilhaan Cumar iyo saddex kale oo ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka. Michelle Obama ayaa si weyn uga soo horjeesatay hadalkii uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweyne Trump, kaasi oo ahaa inay dalalkoodii hore ku laabtaan haweenka xildhibaanada midabka leh ee ka tirsan golaha Koongareeska ee Mareykanka. Qoraal ay soo dhigtay haweeneydani barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in Trump uu ku kacay gaf weyn oo aan garowshiye lahayn. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in Mareykanka qofka u dhashay iyo qofka qaxoontiga ahiba ay u siman yihiin. Siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ay ka mid tahay afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa hore u cambaaraysay tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay liiska odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi. Liiska odayaasha lagu dhawaaqay ayaa waxaa la sugayaa inay si degdeg ah u soo doortaan xildhibaanada maamulka Jubbaland. Ergada ayaa waxay isugu jiraan odayaasha wax ka soo xulay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo odayaal dhaqameedyo kale oo matalaya beelaha deegaanada Jubbaland. Sidoo kale odayaasha ayaa dhawaan tababar lagu baranayay habka lagu soo xulayo baarlamaanka waxa ay ku qaateen magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland. Dhawaan ayay ahayd markii murashaxiinta ugu cadcad ee la tartamaysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay ku eedeeyeen inuu afduubay hanaankii doorashada Jubbaland, isla markaana ay adag tahay in la qabto doorasho xol iyo xalaal ah.